مشكلة ملا إن قبيلة ديستان وش هجان بدك بنت الشجرة ولا يقنع عيانك مدحتويد ويقول العق يجع السيادة بنت العقب بحيان ده سمو ورم قبل نمد قبل كقبيلة وان ما يستريح يا هو كاسب الهاي هذا مدحويد هاي هذا وان ما يستريح ما ورنا يده هل قلنا وكسر شيء أقول لي مكت بركا مقبيلي مع عبد الرحمن باحي يقول أنت دي سلا بسموه سلا هو قبيلة ديستان وش هجان oo ku institutionskooda ku soo guro caylkooda iyo ehelkooda mana muuneysaan intan waxa hadalana uma baanaan iman waxaan islahay walaalidii waxa soo tustaan garab istaag iyo walaalnimo iyagoo shaqeynayna xafiiskooda ugu tago baan islahay saaga 6dii bay ahayd 17 saacadood baan soconay hadlaynay shaqeynaynay walina ma naan daalin hadii kuwayna eedaynaya waxay sheegayaan dhib yihiin ilaahay uu na daalin lahaa wax mushkilada mala in qabiilada deystaan ugu sheegaan because ilaahay hortiisa aan ognay inay been sheegayaan qabiilada caanaheeda waxa abba kuwa inaga inagu eeday qabiiladistayaasha xilalkana iyaga ku haya iyaga muuse ku ag jooga iyaga muuse wax ku ah laakiin inagu ilaahayna waa ogay maalintii ummadda aynu hornimo waxa la hornimay maantana ilaahay waa ogyahay qalbigayga wanaaggaanu la doonay gabiil baanu la doonay salaax liib la gobolana horumarkan halkan la rabnaa boorama la rabnaa horumarkan boorama la doonaa burca la doonayna kaana burca la doonaan ceer gaabo la rabnaa ayaan darana waa idin sheegayaa ninka qabiiladiistaha nagu sheegaya waligii sari salaaxli ku taal soo seexan koob shaana kama soo cabin mid bal gobol ku taal hadalkeeda badaa anagu laakiin sariir aanan soo seexan iyo magaalo aanan tagin anagoon dan u lahayn oo codka doonahayn oo waxba ka rabin ay taariikhdoodii sawirkeedu ba yaala iska seexanaa iska soo joogna dadka iyagana isku sibaan u jecelahay qofka qabiiladistiis ma qariyo kuwa qabiiladistaha lagu sheegaa oo kuwa institutionskooda ku soo guro caylkooda iyo ehelkooda hareeraha ay ka taagan yihiin iyagu shaqaaleeya iyagu wuxuu qabtaa deegaankoodana ma dhaafaan magaaladan gabiilena martina horan ugu ma noqon imkana ku noqon maayo anigoo iska socda masaajidka ku tukadayo maamada caanka ka sheekeeyo ayaa iga raacday oo nin baa islaam wuxuu hore Cabdiraxmaan iska waran oo maayirkaaga soo magasuuli soo maayirkaaga sabta san ha soo wallahi niyo anu ku ducaynaya way buu ninka hargeysa maayirkay buu oo nin maroodu u meedhay buu wuxuu biyo ka gaarsiin buu intaas waa intaa anagu booqashada soconay waxa way haydoon dadku waxay wax isugu yiin ma yaqaanaan waxaynu wax isugu nahay xisbinimada waxaynu keenna guulayno wada leenahay waan ogahay inaan xil wada helay laakiin waxaynu doonaynaa guul inteena yara kooban ee xilka heshaa ay inta dibadda joogta ku ilaalinayso ku ixtiraamayso fadhigana uga kacayso kuwa xilka hayana ay xasuusinayso waa ummadda waxaynu u ballan qaadnaa la qabto barnaamijkana lagu taagnaado meel wal oo ballan qaad laga sameeyo ballan qaadkii laga sameeyo la fuliyo musharaxu bayaankiisu waa cad yahay gobolkan ballan qaad cad buu ka sameeyay waanu fulinayaa insha Allah taala maanta reer Axmed Dhagax oo haddana habaasweyn intaasan soo maray iyagana waxaan u sheegnay ballan qaadku uu sameeyay rag baa si doonayay inay wax kale u sheegaan propagandadu waari mayso runta waaraysa Soomaaliland propagandadan iyo beenta waxa lagu soo waday 32 years nolol way sameeyay weeyday runtu baa nolol sameynaysa dadka beenta sheegana waa la yaqaanaa cayayaanka madaxtooyada weeyo lacag iyaga siiyade beenta lacag ku bixiyaan dadka inay caayaan oo kala qaybiyaan baa lagu beeliyaa cashuurtii wax lagu qaban lagu beeliyaa mushaharna way ku qaataan laakiin waxaanay ogeyn ay inaanay inugu joojinin baanay ogeyn waxaynu aaminsanahay inaanay inaga joojinin baanay ogeyn mujaahid booq intuu la soo yurreeyo ogeydeen adkaysigeeda iyo samirkeeda ayaynu leenahay halgankeenu ku jirnaana maaha midaynu ciro doonayno markaynu kursiga saaro inay inagu faa'iido danaheenu ay inoo hirgalaan waxaynu doonaynaa inaynu nolol dhaafsano oo nolol ay hirgasho ayaynu doonaynaa hubaalna waxa anu intaan ogahay ka maqlay Cabdiraxmaan
nin wanaag la doonaya Soomaaliland oo qalbi fiican inuu yahay buuggeena wax wanaagsan baa ku qoran runtaasina dadka ka iibinayna runtaasina dadka u sheegana dadku lamun bay kala dooranayaan propagandada iyo beenta imika kulmiye miya aragteen mar quraatay soo barnaamijkiisa ka hadlaya ya daabuur kasta Cabdiraxmaan wageli taageen waqtigoodii buu lumayba dadka barnaamij baa la hor yimaadaa inagu laakiin waxaynu la hor imanaynaa ballan qaadiyadu musharaxiinu sameeyay iyo barnaamijkeena waxa ku qoran ayaynu dadka la hor tageynaa kaasinu dadka u sharaxaynaa kaasinu dadka u sheegaynaa kaasaanu maanta saaka 6dii ku bilownay imika la noqonaynaa barina insha Allah ta'ala dadka u sheegaynaa ilaa 13 November ay gaaraysan aanaa ka daalahayn iyaguna waxba yaani ashxaas iyo hebel baa la joogi jiray iyo hebel baa ka tagay iyo hebel baa caynkan iyo hebel baa waxa yaani ku meeraysanay ummadda waxay u qabteen 14 sano meesha joogeen hal hor yimaadaan waxay imika qabanayaan ummadda hal hor yimaadaan dadkana ha ogolaadaan in inta kala doortaan ummadda reer Soomaaliland ee Ilaahay wada abuuray Soomaaliland bay wada leeyihiin bal waxa doonayeen inuu taliyo nin kala geynaya oo kala kaxaynaya ayaa doonayeen inuu taliyo inagu laakiin waxaynu sidnaa nin ku baryootamayo ummadaydan midaynaya walaalaynaya wuxuu yar ay leeyihiin wadaajinaya si siman ugu qaybinaya ayaynu sidnaa oo barnaamijkiisuna cad yahay ayaynu sidnaa ninka aan hadalka la gabanayne ballantu sameeyay muddadeeda sheegay baynu sidnaa soo mu oran gobolnimada gobolka Gabiley waan dhameystiraya ya wakaas bal hay dhaahdo madaxweynuhu hay dhaahdo waan dhameystiraya ma oranayade halkana waa ka soo jeedaa buu leeyahay moogta marka Gabiley ma Cabdiraxmaan baaxi godanteedii sida mise Muuse sida maanka ina gaajisan way fahamkeena aad u yar way de beentiye propagandadu waa la wadwadi karaa ayaamo waa imika waad maqasheen Cabdi kana wadooyin waa loo kala eexday wadadu miyay guuri waligeed guuri mayse iskuulku miyuu guuri MCH ku miyuu guuri biyo Mareykanku miyuu guuri walla inaanu guuray dooxa Hargeysa nadiifti miyuu guuray ma uu joogaya propagandada beenta waa la sheegi karaa laakiin waxa la qabtay way joogayaan musharaxiinana run buu dadka la hor yimi runtaasina ku mataleynaa runtaasina dadka cod ku weydiisanayna runtaasina dadka ku bareynaa